barasaabka gobolka Saraar oo weheliyo maayirka degmada Caynaba iyo suduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saraar mudane Jaamac Muuse Faarax waxay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen dhismo cusub oo lagu kordhinayo dugsiga hoose dhexe ayaan leh dhismayaashan cusub ee lagu kordhinayo dugsigan oo ay hirgelinayaan qaar ka mid ah qurbajoog u dhashay gobolka Saraar ayaa ah laba qol iyo geed waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ayaan leh Khadiija Maxamuud Jaamac waxayna sheegtay in ardayda haatan loo dhisi doono labadan qol ee cusubi ay wax ku dhigan jireen goob cariisha hoostiisa salaan ka bacdi waxaan maanta halkan isugu nimi in naloo dhagax dhigo laba fasal iyo deyrkii iskuulka oo ay dhisayaan qurbajoog ka soo jeeda gobolkan golaha reer Yoonis la yiraahdo ayaa ballan qaaday inay dhisayaan waxaan kala codsanaynaa insha Allah intaas way noo suurowday in deegaanka intiisa kale ee ku xeeran gobolkan Saraareed baahidan jirta ee ay ka damqadeen raggaasi deegaanka kale nala dega beelaha kale ka soo jeedana waxaan kaga rajaynaynaa insha Allah inay ku daydaan oo iyaguna ka qayb qaataan dhiska iskuulka sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Saraar maayirka degmada Caynaba isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saraar Professor Salaaman Cali Dhawaaq xildhibaan Abubakar Shida Cali iyo mas'uuliyiin kale waxayna dhamaantoodba u mahadnaqeen qurbajooga kala duwan ee iyagu ku soo tabarucay dhismaha labadan qol iyo geedkan oo ay tilmaameen si weyn lagu baahnaa iyagoo sidoo kale qurbajooga kale ee gobolka Saraar ka soo jeedana ka codsaday inay ku daydaan qurbajoogani annagu haddaan nahay ka wasaarad ahaan kulli annaga laftiga iyaguna de wixii aanu ka qaban karno wixii hore aanu ka qabanayna waanu ka qabanay wixii dambe aanu ka qaban karnayna waan ku daraynaa waa ka qabanaynaa marka waxa weeye saaka ayaan u dhagax dhigaynaa iskuulkii ayaanle laba galaas iyo dayrkii lagu soo wareejin lahaa baanu saaka loo bilaabayaa insha Allah qoladan qurbajoogta ayaa isa soo xilqaantay uu number 1 ka yahay Mustafa Xasan Cabdi Khayre iyo Saciid Cabdullaahi Khayreeye Saciid Yuusuf Cartan ragga runtii aad iyo aad ban ugu mahadsan waa aqoontii waa waxgaradkii dadka deegaanka ka soo jeeday qaar ka mid waxaan leeyahay cid kasta iskuulkan u baahan yahay bulshooyinka kale ku abtirsada gobolka Saraar ayaguna ka soo qayb galaan halkan waxa ka dhawaaqay in la yiraahdo waxa dhisaya labada fasal iyo deyrkan golaha Yoonis ee qurbajoogta alxamdulillah waan u hambalyeeyna ilaahay ha barakeeyo golaha Yoonis qurbajoogta meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay qolyaha kale ee la facooda ah ee ardayda wax uga dhigato ee qurbajooga la joogta ee golayaasha leh ee waliba golaha ku xiga golaha uu yahay uu iskarayaa haddana afar ku dhiftan aan ahayd Cumar ay yihiin waxaan leeyahay idinkuna afarta fasal kale ee harsan soo dhisa marka dawladda hoose carabka lagu dhiftay dawladda hoose horta halkan hal la dhiso marka intan hore la dhiso meel kastaba ha ka keentay inta dambana waa keenis marka ayaan laba qolba loodhan waa in la dhisaa iskuul lagaga maarmo dhulka waanu bixinaynaa meel lagaga maarmo ardayda gelinka dambe soo noqonaysa horta alxamdulillah rabbil caalamiin maanta mar hadii iskuulkii ayaan la ardaydu ay dibadda taagneyd aanu dhagax dhigayno laba class iyo deyrkiisii dadku inay wax qabsadaan way fiican tahay waana in la wacyi geliyo dadku wax qabsadaan dawladuna ay inteeda ugu darto aad bay u fiicanto waa iskaashi weeye waana ta loo baahan yahay marka haddii ay intan dadkii qabsadeen oo qurbajoogteena inoo keentay marka hore aad baan ugu mahad celinayaa intanuun ma aha iyaga laftoodu inay ka soo kordhiyaan oo baahiyaha iskuulka ay bal ku dadaalaan inay dhammaystiraan waynu u baahannahay tii dawlad ahaaneedna waraaqihii uu ii dhiibay iyo baahidii ay soo qortay maamuluhu waan gudbiyey wasaaradda waan geeyaano gudoomiyahanana geeyey ballankeedina wuu noo yaalay Jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba